kusoo dhawaada warbixin ku saabsan degmada Qoryooley taariikhdeeda oo kooban. Qoryooley waa magaalo ku taalo koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. Degmadu waxay ka kooban tahay 3 xaafadood oo kala ah Hodan, Xalane, Wadajir, waxayna caan ku tahay xoolaha iyo beeraha. Waxayna soo saartaa galeyda, sisinta, digirta, tubaakada, cambaha, yaanyada. Qoryooley waxay sidoo kale soo saari jirtay qasabka, bariiska, suufka, canuuriga iyo waxyaabo kale oo la mid ah geedimiroodiyada kale. Waxaa gabi ahaanba saameeyay colaadihii kala duwanaa ee dalka soo maray iyo waliba maqaarka xoolaha oo sida badan loo dhoofin jiray magaalada Muqdisho meelo kalena ugu sii gudbi jiray, balse waxaa aad u saameeyay hadda colaadihii dalka soo maray. Waxaaba gabi ahaanba meesha ka baxay wax soo saarkii ay degmadaasi lahaan jirtay ee caanka ku ahayd. Kaligeedna ma ahin saameynta raadadka colaada ay ku yeelatay wax soo saarka dalagyadii dalkeena, oo waxaa jiro magaalooyin badan oo wax soo saarkoodii hadda aad u liito marka loo eego xilliyadii hore. Magaalada Qoryooley waxaa sidoo kale ay soo saartaa caanaha geela iyo kuwa looda oo sida badan ka soo gala tuulooyinka aan sida ugu sii fogeen, kama marna ukunta, subagga looda. waxaa mara degmada Qoryooley webiga Shabeelle oo inta badan looga faa'iideysto waraabinta beeraha iyo waliba xoolaha. Waxaana sidoo kale inta badan magaaladaasi ku soo wareega kanal weyn oo lagu magacaabo Liibaan, kaasi oo magac ahaanba ay qaadatay Liibaantii Qoryooley. Haddaba si aan wax badan uga ogaano taariikhda degmada iyo marxaladihii kala duwanaa ee soo martay iyo waliba goobaha taariikhiga ee degmadaasi ku yaala, ayaa waxaa inoo suurto gashay inaan wax badan ka weydiino gudoomiyaha degmada Qoryooley Siid Cali Ibraahim. degmada halkan iyo bulshada deegaanka ku nool intaba haddii dhanka beeraha tahay, xoolaha sidoo kale waa xooley iyo beerley isku jirta degmada bulshada ku dhaqan. xooleyda way gurtaa, amni haystaan, hadday tahay cudurro kala duwan xoolaha ku dhaca inta badan wasaaradda halkaasi oo xanaanada xoolaha u qaabilsan dowladda goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasiirkeedii iyo kan federaalkaba waa iska kaashanaa, wayna siiyaan daawooyinkii halkan loogu talagalay xoolaha. isdhexgalka kale bulshada dhaqaale maanta heerka uu taagan yahay heer ka wanaagsan u gaar lahay habeertay ma jiraan. LGB-geena kor inuu kacmaan hoos mu socdo sanadahan dambe, waayo haddii beerihiin la waraabinayo xoolihiina ay doog haystaan daaqayaan oo haystaan oo markaasi caafimaad ahaan daawadii loo daba joogo. marka waxaan dhihi karnaa marka giigan ama degmadan iyo tuulooyinka ku xeeranba hadday beero tahay, haddii xoolo tahay iyo hadday ganacsi tahayba waa mid isku xiran. xogayaha degmada Qoryooley Ibraahim Laqamo Ibraahim ayaa isna dhankiisa sharaxaya taariikhda faca weyn ee degmada leedahay, isagoo xusay degmada Qoryooley xilliyadii ay degmadnimada qaadatay iyo waxyaabihii caanka ay ku ahayd. Wuxuuna sheegay in degmada Qoryooley ay lafdhabar buuxda u ahayd wax soo saarka dalka. Qoryooley waxaa degmadnimada ay qaadatay 1960-kii, xornimada markii la qaatay degma laga dhigay. Qoryooley waxay caan ku tahay galeyda iyo sisinta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo xoolaha. sidoo kale waxaan ku maqlay in wax soo saarkeedu uu ka mid yahay suufka. muddooyinkan maxaa ku dhacay markii dawladda kacaanka waxay ka dambeeyay suuf lagu mataabin, waxay ka horeeyay waa lagu tacbi jiray suuf. kooxda Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalada Qoryooley Maaj 2014 iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab oo muddo ku dhawaad 5 sano gacanta ku hayay magaaladaasi. Qoryooley ayaa hadda u muuqata mid ka soo kabanaysa dhibaatooyinka kala duwan ee soo martay, iyadoo hadda ay ku socoto wadadii lagu yaqiinay marka laga reebo dhinacyada adeegyada bulshada oo wali sidii la rabay aan ahayn.